hagaag dhageystayaal wali sheekadii kun habeen iyo habeen ayaad maqlaysaan qaybtii saddexaad ayaynu sii gudbaynaa qaybtii labaad waxay inoogu dambeysay markii ay gabadhiisii ku tiri maxaa ku dhacay debigii iyo dameerkii uu ninkii beeralayga lahaa halkana waxaan ka sii ambaqaadi doonaa qaybta saddexaad ee sheekadii kun habeen iyo habeen wasiirkii wuxuu gabadhiisa ku yiri ogow gabadhaydiyey in uu jiray nin beeraley xoolo dhaqato ahaan jiray wuxuuna lahaa xaas iyo caruur ninkaas alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu deeqay aqoonta luqadaha xayawaanaadka iyo shimbiraha laakiin hadduu ka xog waramo uu dhimanayo ninkaas beeralayda wuxuu lahaa dameer iyo dibi dameerka shaqadiisa waxay ahayd in ninka raaco ee meeshuu doono ku aado halka dibiga shaqadiisa ay ahayd in subaxii ilaa galabtii beerta lagu falo maalintii dambe ayaa dibigii waxa u yimid dameerkii asigoo iska fadhiyo oo cawskana iska cunayo biyahana ay ag yaallaan wuxuuna ku yidhi way kuu dhacatay aniga waan daalay oo tacbaan ayaan ahay sidii beer la iigu falayay laakiin adiga halkan ayaad cawska isaga ruugaysaa shaqo badanna ma qabatid markaas ayuu dameerkii yidhi talo anigaa kuu hayo berri markii laguu yimaado oo xarigga iyo tiirka yaambada beerta lagu falayo lagugu xidho iska fariiso hana istaagin xitaa hadday ku garaacaan haddii aad kacdana mar kale fariiso markay kaa dareemaan tabardarri waxay kuu keenayaan bal iyo caws si aad xoog u yeelato ee ha cunin cuntada iyo cabistana jooji ilaa 2 maalin sidaas ayaad shaqo badan kaga nasan kartaa ninkii beeralayda ahaa sheekadooda ayuu maqlay wuuna la yaabay subaxii ku xigay markii la gaaray ayuu dibigii diiday in uu kaco si kasta oo la isugu dayay waa kici waayey markaas ayuu ninkii beeralayda ahaa yidhi dameerka ha la wado oo beerta ha lagu falo markaas ayaa dameerkii la waday oo maalintii dhan beerta lagu falayay galabkii markii uu dameerkii moorada ku soo laabtay waxaa u mahad celiyey dibigii abaalka uu u sameeyey iyo talada uu siiyey laakiin dameerkii ma uusan jawaabin asigoo si xun uga shallaayay in taladaas asiga uu siiyey dibiga maalintii labaad ninkii beeralayda ahaa wuxuu u yimid dameerkii isagoo dibiga faraha ka qaaday mar labaad ayaana beertii lagu soo falay galabtii asagoo tacbaan ah markuu ku soo laabtay xiradii waxaa mar kale u mahad celiyey dibigii laakiin dameerkii ayaan markaa ku yidhi dibigii aniga waan kuu naseexayn waayo waxaan maanta maqlay ninka beeralayda oo shaqaalihiisa ku leh haddii berri dibiga kici waayo waxaad u geysaan kawaanlaha si uu u qalo wax faa'iido laguma qabee marba hadduusan beerta fali karin markuu dibigii hadalkaas maqlay ayuu haddana dameerkii u mahad celiyey wuxuuna dhahay berri waa howl bilaabi doonaa ninkii beeralayda ahaa sheekadaasna wuu maqlayaa subaxii markii la gaaray dibigii wuxuu bilaabay inuu wax badan cuno asigoo shaqo isku diyaarinayo subaxii markii la gaaray ninkii beeralayda ahaa oo u arkay fagfagta dibiga ka muuqato iyo siduu shaqo diyaar ugu yahay ayuu qosol la dhacay naagtiisii oo meesha ka dhoweyd ayaa waxay tidhi maxaad ku qoslaysaa markaas ayuu wuxuu yidhi haddaan kuu sheego waan dhimanayaa waxay tidhi ii sheeg xitaa haddaad dhimanayso markay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii isugu wacay si uu u dardaarmo dadkii ayaa isku dayey in ay naagta la hadlaan oo ay celiyaan laakiin waa ka diiday waxayna tidhi waan ogahay anigu igu qoslayaa ee ha sheego
wuxuu ku qoslayo xitaa haddii uu dhimanayo. ninkii beeralayda ahaa naagtiisa aad ayuu u jeclaa. wuxuu go'aansaday inuu u sheego, wuxuuna aaday gurigiisa si uu 2 ragco oo sunno ah u tukado. asigoo gurigiisa ku dhex jira ayuu wuxuu maqlay eeygii guriga u joogay oo diiqa la hadlaya. wuxuuna ku yidhi, diiqow, adiga halkan ayaad 50 dooro iska dhex fadhisaa, saaxiibkeenna wuu dhiman rabaa. markaas ayuu diiqii yidhi, wallaahi saaxiibkeen haddii uu caqli leeyahay naagta wuu iska edbin lahaa. aniga 50kaas dooro ayaa ii joogto. middaan hadday iga xanaaqdo inta edbiyo ayaan kuwa kale dhexda ka galaa. waxaase fiicnaan lahayd in saaxiibkeenna naagtiisa edbiyo ilaa ay ka toobad keenayso. ninkii beeralayda ahaana hadalkii ayuu maqlayaa. kadib ayuu soo baxay, wuxuuna u yeeray naagtiisa, wuxuuna ku yidhi, qolka soo gal, gooni ayaan kuugu sheegayaa. markay qolkii soo gashay ayuu si daran u garaacay ilaa ay ka qayliso oo ay ku tidhaahdo, waan toobad keenaa. hadalkaas ayayna naagtii hadalkeedii uga noqotay. dadkiina ku farxeen maadaama ay nolosha ninkii badbaaday. markaas ayuu wasiirkii gabadhiisa ku yidhi, adigana sidii dameerkaas oo kale inay kugu dhacdo ayaan ka baqaa. intaad isleedahay dad kale badbaadi, naftaada halisa gelin. markii Shahrazad ay maqashay sheekadaas ayaa waxay tidhi, wixii dhacayo ha dhacayn, boqorkan ii guuri, anigaa diyaar u ah. sidii ayaa gabadhii boqorka loogu guuriyey. waxayna gabadhii Shahrazad ahayd la sii dardaarantay walaasheed ka yar ee Dunyazaad, iyadoo ku tidhi, markii boqorka la ii geeyo waxaan kaa codsanayaa habeenkaas markii uu dantiisa iga bogto inaad habeenkaas wehel ii noqoto. haddii uu oggolaado waxaad igu dhahdaa, abbaayoy, maad nooga sheekaysid sheeko cajiib ah oo ka mid ah sheekooyinkaadii hallaasiga ahaa, maadaama aad berri naga tegaysid lagu dilaayo. aniga insha allah sheeko aan boqorka kaga taqalluso ayaan bilaabayaa. kadibna gabadhii sidii ayaa lagu galbiyey. markii boqorkii loo geeyey ayay gabadhii Shahrazad ahayd ooysay. markaas ayaa boqor Shahryar yidhi, maxaad u ooynaysaa? waxay tidhi, waxaa jirto gabar walaashayda ah oo iga yar, waxaana rabaa inaan sagootiyo ee ii oggolow. markaas ayuu u oggolaaday. kadib markii Dunyazaad imaaday ayay habsiisay iyadoo sagootinaysa. markaas ayay Dunyazaad tidhi, abbaayoy, maad nooga sheekaysid sheekooyinkaagii hallaasiga ahaa mid ka mid ah. markaas ayay Shahrazad tidhi, waan ka sheekaynayaa haddii boqorka noo oggolaado. markuu boqor Shahryar hadalkaas maqlay ayuu yidhi, bal sheeg aan maqalnee sheekooyinkaas mid ka mid ah. halkaa haynoo joogto qaybtii 3aad ee sheekadii 1000 habeen iyo habeen.